بسم الله الرحمن الرحيم. وزيرك وزارة الشباب والعثمان xildhibaan abubakar barasaabka maayarka boolama xogayaha dhammaan inta kale marti sharafka xugusna waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka xiga waxaan mahadnaq gaara aan u dirayaa waxay ciidda barakaysan dhammaan shacabka somalilan waxaan kaloo aan halka ka salaamaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan madaxweyne iyo dhammaanba dadka kale iyo gudoomiyaha xisbiga waxaan iyar baa ku dheeraanaya qabadkii xukuumaddan sidaana gobolka wadalahaanta wadogsoontiin wadadii ballanqaadka xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu wadagtii maanta inay dilaha ka soo qaadnay oo shubac lagubaani ay marayso inta kalena lasoo dhammaystiri doonaan diila yidhaahdo waxaad ka warhaysaan waxbarashadii gobolka ee macallimiin lahayd ee iskuulada xidhi jireen inaad maanta ka wada haqabeesheen waxaad ka warhaysaan in caafimaadkii gobolka laha qabtinaya isagana oo si miilyahooda loo daba socdo oo la ballaarinayo meel kastaba ilaa heer degmo intaas waxaan kaloo aan maanta aan halkan ugu dhawaaqayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye in laga bilaabo maanta 27ka bishan oktoobar oo ay beristeedaatan tahay in dhammaanba xafiisyadii xisbiga siduu u wada dhan yahayba gobolka oo dhanba albaabada loo wada furayo xafiis kasta iyo xisbigu mas-uul ka yahay oo uu furmayo ayaan taa u sheegaynaa oo dhanba talabaad waxaan kaloo idiin sheegayaa xisbiga kulmiye golihiisa deegaanka waa xisbiga keli ahaata ee jamhuuriyadda somalilan ee golihiisii deegaanka ahaa musharaxiintiisii golaha deegaanka ay ku guulaystay 2002 uu hore ugu gudbay oo uu noqday maanta madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan waa mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil oo ka soo bilaabay musharax golaha deegaanka xilligii xisbiga la aasaasay 2002 waxa weeye wadadkii xisbiga kulmiye mooyaanatigiisa iyo wixiisa waa xisbiga qulaata ee dalka isku keenay sidaad wada arkayseenba heesii gobolku u qaadaya siduu yahayba waad dareemaysaan inuu yahay xisbiga qulaata ee hiilyahooda u egtaaga dalka wadadkii waxqabadka berbera hargeysa boorama burco saylac meel kastaba abaarihii dhacay gurmadkii ka dhacay waad ogeydeen dowladda xukuumaddu dhammaanna madaxweynuhu baa quudray madaxweyne ku-xigeenka halkuu soo maray golihiisa wasiiradu say hadii habeendiila joogeen waxqabadka xukuumaddan runtaa fiicane dafoodkiinay ka muuqataa maanta dafoodkiinay ka muuqataa soomaad garan waxa weeye ku dheeraan maayo hadalka waxaan ku soo dhawaynayaa wasiirka warshadaha mudane cabdisaaq cali cismaan كل واحد يجي صلاة أنا ما يعني أنا هذا بدل هذا اليوم كان هنا هذا اليوم أنا كمان ولا وين كان كليان 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 نيركا كل دوسة كل سام كلها كل حسبي كل حسبي تدري أنا تبغى صلاة إسلام إسلام لا يجوز الله يبارك ولا يهلا كل بعض الله الله يعين المشركين حسبي كلية يا على قلوبنا الله يبارك يا قلوبنا مقعبة حسبي وعلى يعين المشركين تسديل الجيل هذا هو الجيل وقتي معني وين تقدر الإنسان وين ترشح حلال كنت يهرجلون إنه مراد سيك حتى الاستراتيجية في عالم سيك حتى وتكون من الجرين إنسان وتكون من الجرين إنسان كله يبقى الإنسان وحسكم منها تاريخ وين سيك حتى المقطع ولا حسبنا والله ما أنت وقت بيمعني ساعات الله بيرابو هيك تنبيه الشركين بيمعني سبحنا الله هم سوي بريين سبحنا الله كسر حسبنا ما هو بريين ساعات الله بيرابو الشركين ينتظر كسر مقابل الإنسان ولا بيار دوما مالين تأتينا يرابو إنه بطور السيد كذا يكندين كندين كونا يسيا حلالا ويا وينونا أو حفتي الله أو نقدر الله أو ولا الإنسان ولا كندين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.